السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا مركلة iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo aan bogeenan bukaan deeq mar waliba in kaga soo gudbino hadii ilaa yeedma mowduucan waxaan uga hadli doonaa waxyaabaha sababa malaariyada soo noqnoqota kadib markii bukaanka laga daweeyo malaariyada waxa keena noole lagu magacaabo plasmodium waxaana gudbiya kaneecada nuuceeda dhadiga ah female mosquito anopheles waxa loo qaybiyaa ilaa 5 nuuc plasmodium vivacis plasmodium malaria plasmodium ovale plasmodium falciparum oo ah nooca ay Soomaalidu sida wanaagsan u taqaano ee ku magacaawdo BF iyo nooc dhawaan lagu soo daray oo lagu magacaabo Plasmodium knowlesi marka ay kaneecadu qofka qaniinto dhiigana uu raaco noolaha sababa malaariyada unugyada ugu horeeya ay burburinayso waa dhiig cas ee oksijiinka qaada iyo beerka waxaana ay soo saartaa calaamado kala duwan sida qandho dhiig la'aan lalabo afqaraar jir xanuun iyo xataa ugu dambeyn dhimasho dadka ugu daran ee halista ku hayso waa caruurta ka yar 5 sano dumarka uurka leh dadka qaba cudurka halista ah ee HIV waayeelka difaaca jirkoodu oo hooseeyo iyo dadka u safra deegaanada ay dhibaatada ku hayso oo aan ka hortag u sii qaadan malaariyada waxa lagu daweyn karaa dawooyin kala duwan kuwooda ugu caansan waxa kamid ah 1 artemether 2 artemisinin 3 quinine iyo kuwa kale marka waxa dhacda in Soomaalidu ay dawada farmashiyaasha ka soo iibsadaan ayagoo aan loo qorin ama farmashiyaasha qaarkood ay u siiyaan bukaanada si aan sax ahayn taas oo keeni karta in bukaanka uusan ka bixin cudurka sida oo kalena cudurku oo u yeesho awood ugu adkaysto dawada waxa lagu siiyaa bukaan walba hadba heerka uu miisaankiisu leeyahay hadii bukaanka uu aad u cayilan yahay wuxuu qaadan doonaa ama qaadanaya laba ujibaar dawadii bukaanada heerkoodu oo dhexdhexaadka yahay miisaanka ay qaadan lahaayeen hadii uu miisaankiisu aad u yar yahay wuxuu qaadan doonaa garaam aad uga yar dadka miisaankoodu sidoo kale dhexdhexaadka uu yahay farmashiyaasha qaarkood ama dadka aan aqoonta wanaagsan u lahayn dawada waxay siiyaan bukaanada oo dhan hal dawo oo isku garaam ah maadaama cirbadaha loo isticmaalo malaariyada qaar ay 6 xabo bukiskiiba ku jirto hadii bukaanku cayilan yahay ama uu caata yahay ayagu waxa ay siiyaan 6 xabo uun markasta laakiin dhabtu sida ma ahan kan cayilan wuxuu yeelan karaa 12 xabo oo cirbad ah oo u dhiganta ilaa 2 bukis halka kan aadka caatada u ah oo yeelan karo 5 cirbad oo xitaa oo ay ka hari karto halka bukis ay 6 xabo cirbada ay ku jirto xabad kamida tusaale ahaan dawada artemeterka iyo kuwa la midka ah waxa loogu dhuftaa bukaanka miisaankiisa qiyaas ahaan 3.2 mg/kg maalinka ugu horeeya halka wixii ka dambeeya maalinka loogu dhufto 1.6 mg/kg marka hadii bukaanka miisaankiisu yahay 95 kg oo aad u cayilan yahay wuxuu qaadan doonaa maalinka ugu horeeya 3.2 mg oo lagu dhuftay 95 kg oo noqonaysa 304 mg sida caadiga ah cirbada dadka waaweyn ee artemeterka waa 80 mg marka wuxuu qaadan doonaa bukaanka maalinka ugu horeeya 4 cirbad oo artemeter ah wixii ka dambeeyana wuxuu qaadan doonaa 1.6 mg oo lagu dhuftay 95 kg oo u dhiganta kala bar intii maalintii hore oo qaatay ee aan soo sheegnay oo ah 152 mg marka waxa la duri doonaa maalin walba ilaa 4 maalmood oo soo socota 2 cirbad tusaale kale hadii bukaanka miisaankiisu yahay 40 kg waxa loogu dhufan doonaa 3.2 mg/40 kg waxay noqonaysaa marka 128 mg marka xilliga ugu horeysa bukaanka miisaankiisu yahay 40 kg wuxuu qaadanayaa hal cirbad iyo bar wixii ka dambeeyana wuxuu qaadan doonaa hal cirbad maalin walba ilaa 4 maalmood dhammaan waxaan halkan ku soo sheegay ee xisaabta ah waxaad ka heli kartaa ama ay ku qoran tahay leafletka ama warqadda la socota dawada gunaanadkii waa muhiim in qofka qoraya dawada uu aqoon u leeyahay si qofka caafimaadka u soo doontay cudur ugu beerin ama sidoo kale dib dawadu sababtay ugu geysan